xasano waddankan caruuri kaama taallo waddankan cidi kaama taqaano cid aad matashaan ma jirto edabdarrada ciise aad la dhex socoto waryaa ka fadhiiso wallaahi haddaad ka fadhiisan weydo bilaahi aad ka fadhiisan weydo tallaabadeedaanu kaa qaaday adi taasaan ku leeyahay ta ka labaad wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waan wasiir waan ku saacidnay waanu ku ixtiraamnay waar ciisuhu go'aankay soo saareen ku horkac oo madaxweynaha tus oo gaadhsii ayay ahayd adi mas-uuliyadda ku saaran waan ka xumahay hadallada barhkood inaad isdhex dhigto mas-uuliyiintii dowladda loogu jiray wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka raggii nabadda tool lahaa baa tihiin raggii odayaal wax meel ka daba qaylinaya qada la cuni lahaa ma tihin ilaha baa runta jecele ciise hadday jabuuti tahay iyo hadday etoobiya tahay iyo hadday somalilan tahay duruufo gaara iyo dana gaara ayuu kala leeyahay ciisaha somalilan wixii u dana ee duruufta ku xeeran xallin kara dadkii xallin lahaa baan hadalka cadde hilqaafka ee barasaabada nabadda ka tilinay tabliiqa lagala daba yimiday waanu ka soo horjeednaa waxa ku jirta shirkii jiri nabad ku wada noolaansho beelaha deriska ah qodob ka mid ah waxa shirkii jiri wixii ka soo baxay haddaynan garanayn raggii wixii aan u dhiibna nidhi xukuumadda u geeyo oo bal ma taqaanaa ka soo midha dhaliya waxaan aaminsanahay inayna fahminba waxaan aan u dhiibnay weli wax ka weyn bay raggaasi saareen nimanka guddida ahaa ee hargeysa joogay waxaan marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ciisaha u caddaynaya dal iyo dibad nin kastoo joogaba inaanay ahayn dad loo daba fadhiisanaya danaha beesha ciise ee Soomaaliland ninkayna cali duula leeyahay ma garanayaan wuxuu u jeedo laakiin dad wanaag sameeyay nin forjaynayo isaga dhigaya nin waxayaysu hadda dawladda inaad raacadeen ma noo soo sheegto kugu dirnayn tan ninkii colaad ka dooriyay ma dhacayso shalay haddii ay dhacdo naga caqli bateen naga caqli badnaan karo reeruna way shaqaanaan raguna way shaqaanaan tolkay waxaan leeyahay waxa la yiri farba farta u dhow lagu kaba reerka samaroon la yiraahdo iyo ciise ilaahay baa isbaday dhaqan baan wadaagnaa dhul baan wadaagnaa dhalashaan wadaagnaa ma jirto reer samaroon la yiraahdo oo ku heshiiyey ciise aan boobno aan dhulkiisa qaadanno aan boobno aan rarro horta ma jirtay taas tolka u sheegaya dhowr iyo 30 sano Soomaaliland jirta qof kasta ilaahay halkuu dhigay buu yaalaa reeruhu way shiri karaan reer shiray baan nahay sidii doonaha loo turjubto barasaabadii gobolka salal iyo awdal baan nabad u baxay in sidii dacwii laga daba qayliyaana waa xaaraan tabasha waa jirtaa dhiig baa la kala gali karaa beer baa la isku qabsan karaa dhul baa la isku qabsan karaa ciddii ay khusaysay iyo reerkay ay khusaysaa madal lala fadhiista tolkay waxaan leeyahay ciisu waa sadadka deegaan baa jira reer wax laga tabanay waa la arki karaa laba qof wax kala tabanay waa la arki karaa waar madal baa la iskugu yimaadaa waxaan leeyahay ha talaabina wadadeeda soo mara samaro way noo diyaar garbixiyo inoo yahay waxa la tabanayo duqay ka tali kartaa jirta gobolkan joognaa odayadii baan nahay hadalka cadde hilqaafka ee barasaabada nabadda ka tilinay tabliiqa lagala daba yimiday waanu ka soo horjeednaa mas-uuliyiintii dowladda loogu jiray wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka raggii nabadda tool lahaa baa tihiin raggii odayaal wax meel ka daba qaylinaya qada la cuni lahaa ma tihin ilaha baa runta jecele inaguma la raacsanin waa gaf xaalka bixiya dadkii wax dhammayn lahaa baan nahay dadkii dhaqankaan nahay ciise hadday jabuuti tahay iyo hadday etoobiya tahay iyo hadday somalilan tahay duruufo gaara iyo dana gaara ayuu kala leeyahay ciisaha somalilan wixii u dana ee duruufta ku xeeran xallin kara dadkii xallin lahaa baan meel kale yala nooga yeedhin siiriga meel kale yala nooga tubin waxaan qaadan karaynana maaha hadallada noocaasna ma qaadan karayno wixii intaa ay barasaabadu soo dhameeyeen ciddii ka daba qaylinaysa anagu waanu ka soo horjeednaa hadalkayga waxaan ku gabagabaynayaa
war haddii dhaqan la iskugu imanayo reerka ood wanaagtanaha wax ka tirsanayno yaynaan abaagadhe iyo xabashi iyo cid kale iyo reero kale u marine waar ab iyo abti baan nahay madasha aan isugu nimaadno wada tashanno taasaa muhiima marka ay noo garowsan waayaan een kala naqin kar weyno ayaa ummadda kale loo yeedhaa waxaan leeyahay guddiga ciisaha ee shirkan ka yimi ee hargeysa tegey ee haddee beedakeeda waxaan loo joogin meeshaa ka yidhi war wax ciise inagu raacsay ma nimanka ganacsatada ah ee qadada ugu sameeyey hargeysa daraato odayada aad baan horta iyaga ugu mahadnaqayaa abaallo badan ay galeen oo reerka magaciisa ku galeen oo u galeen way jireen waanan u haynaa waa ognahay taas waa iga taata kale waxaan leeyahay nimanka guddida ahaa ee hargeysa joogay waxaan marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ciisaha u caddaynaya dal iyo dibad nin kastoo joogaba inaanay ahayn dad loo daba fadhiisanaya danaha beesha ciise ee Soomaaliland taas si cad oo kaleera in loo fahmaan qurux badan raggaa waxaanu u dirsanay oo keliya inay qaadaan qodobadii ka soo baxay shirkii jiri oo ay geeyaan hargeysa iyagoo aanan beelna la kulmaynin inay toos xukuumadda ugu geeyaan inta keliya ee aanu u daba fadhiisanaynay ee aanu ka sugaynay warbixinteeda taasay ahayd ma aha in loo fahmo dad loo daba fadhiisanaya danaha beesha ciise ee Soomaaliland hal ogaado taa dal iyo dibad ciise dadka joogo dhanba horta fariintaas aan u dirayaa ta labaad waxaan u mahadnaqayaa wafdigii uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Awdal ee uu ku jiray gudoomiyaha kale gobolka Salal ee uu ku jiray aqalgeesh aadan bila aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Awdal baa isaguna ku jiray Muumin Muuse Ducaale isaga laftiisa waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay waxa qabateen hawshii ragga aan u dirsanay qayb ka mid ah waxa ku jirta shirkii jiri nabad ku wada noolaansho beelaha deriska ah qodob ka mid ah waxa shirkii jiri wixii ka soo baxay haddaynan garanay raggii wixii aan u dhiibna nidhi xukuumadda u geeyo oo bal ma taqaanaa ka soo midha dhaliya waxaan aaminsanahay inayna fahminba waxaan aan u dhiibnay wali wax ka weyn bay raggaasi saareen wax ka weyn bay raggaasi saareen halkaan u dirsanay ma marina meel kale ku socdaan waxaan idin leeyahay anigu mid iyo laba iyo saddex oran maayo war raggaasi waxay doorayaan shirkii dhicisoobay ee lagu soo xidhxidhay ee lagaga sii daayay Boorama nimankaas dabiinka ajandihiisiina jeebada kala soo baxan doonina meelata annaga raggii jiri shirka geey annagu waxa raggii ficilkii waxaan ku annagu waxa raggii fikirka lahaa shirka jiri annagu waxa raggii ficilka u bedelay raggii doonayay waliba shirku inuu dhicisoobo ee dadka celinayay ee hayay ee maalinta uu baaqday shirku ciise wada og yahay baatiyay in annaga maanta na yiraahdaan waxaanu taageeraynaa shirkii jiri wixii ka soo baxay war shirka jiri wixii ka soo baxay anagu ma diidanin yaan la faham yaan qalad laga faham nimanka barasaabada ah guddida ay waftiga ay hogaaminayeen wax iyagu ay ma taqaanaa waxaan ku raadin waxaan u dhiibnay kamid ahaa buu ahay haday qalad u fahmeen imiga ba qaataan qalad haday u fahmeen imiga ba qaataan war miyayna ku jirin nabad hal lagu wada noolaada beeraha deriska ciisa kula noolaada miyaanu qodob ahayn qodobada ka soo wax badan oo annaga lafteeda ma taqaanaa afkayga lagu yiri ba jirta waanu iskaga imanayna hargeysa waynu wada joognaa waana idin imanayna war halka waxaanu idin dirsanay malaha ma idin fahmina dib baanu idin xasuusin doonaa inta balaanu idinku soo soconno qoraalada akhriya oo bal fiidiyoyadii shirkii jiri dib iskugu geeyo ninka wadanka u sareeyaan idin dirnay bal aanu garanba maayo inaad wixii aanu idin dhiibnay oo sax la hortagaysaan bal faham fara badan ha idin ka muuqdo oo haddii su'aalo la idinka weydiiyo waa inaad ka jawaabi kartaan si macquul uga jawaabi kartaan aniga waxaan la ilaa geesh aadan bile sababta aan u hadlaynaana waa mid aanu caddayn doono dhawaan shalay maahay daraato waxaanu ka nimi webka ay hogaaminayeen gudoomiyaha gobolka Awdal iyo gudoomiyaha gobolka Salal iyagoo u baxay labada gobol ee Awdal iyo Salal sababta ay ugu baxeen ay tahay markay maqleen hadalla deelqaafa hadalla beerahaas Awdal iyo Salal joogay ay isugu jawaabayaan markay maqleen ayay garteen iyaga dalka loo dhiibtay iyaga ka gudoomiyaala iyaga ilaahay dawladdu bay ku ogaayeen
waxay kaxaysteen indheergaradkii cuqaashii waxgaradkii gobolka salliya awdal ka soo jeeday waxay u baxeen khuruuj reeramay heshiisiinayn garmay qaadayn waxay lahayn warnimayaho hadallada diilqaafka iska daayeen hadalka xuna dhib buu keenay iska daayay u baxeen khuruuj bay ku baxeen wayna ku soo guulaysteen runtii waa niman waajibaadkoodii qabsay ilaahay un baana og niman waajibaadkii ka saaraa dalka ay maamulaanna niman ka soo baxay wey oo qaatay wey labadaa guddoomiye iyo intii ay kaxaysteen ee ahaa indheergarad waxgarad cuqaashii ay kaxaysteen wayna soo fushay wayna soo dhammaysteen markay hadda soo dhammaysteen aanu soo gallay boorama waxaanu maqalnay niman hargeysa ka hadlay weliba oo niman beesha ciise ah oo weliba anugu waan taabanayaa ninkayna cali duule laydhaah ma garanayaan wuxuu u jeedo inaan hadla ninka kalifana waa ninkaa intii aan soconnay ee aan awdal iyo sal marnina waxaannu arkaynay farihiisa iyo hadallada uu kula hadlayo dadkii deegaanka dhibta uu doonayaanu ma aqaan annagu isaga hawl baan u dirannay shirkii jiri wixii ka soo baxay baannu u dirannay geeya hargeysaanu nidhi inay shirkaa wixii ay laga geeyeen isaaqna umaanaan diran cid kalena umaanaan diran odayga waddanka xakuma madaxweynaan u diran oonu geeyan ilaa hadda wax jawaab oo ka haynaa ma jiro inay taawun ka shaqeeyaan bay ahayd hawl aynay lahayn bay isu galeen dadkii nabadda samaynayey ee lahaa dadka walaalahaada war hadallada diilqaafka iska daaya war dad ishurran baa tihiin inuu yidhaahdo anagu maanaan ogeyn dee malaa inuu isaga la kaxaystuu doonayay ma dadka raacay buu diidanaa yaa dirtay isaga yaa yidhi dhammaan ciisoo dhan baad mas-uul ka tahay annagu ma ogin inuu idhaahdo nabad baana nahay nabad waa layaho waa la og yahay laakiin nabaddarrada waxaa keenay u baxeen haddaad adigu garanayn nabaddarrada waxa u keena nabaddarrada waxaa keena u baxeen mas-uuliyad baa ka saarnay inay baxaan oo ay dadkoodii u tagaan oo ay waxaa xuna caynkaa iska daa yidhahdaan waajibaadkii loo saaray wey adiguse kamaad shaqayn inaad nabad iyo walaal noqdo waayo goobtan mar kasta oon maraba waan ka arkaya hadalkaaga yaa waxaad dadka u sheegtay iyagaa noo sheegaya anu waxaan sheegaya ma iyagaa sheegaya inaad halla kulmina iska diida waxay yidhahdaan in badan baan anigu ku dhowro bal aayar joog aabbaha baan naqaanay dee waad joogsan weyd inaanu ku sheegnan oo waajib wey markaa waxaa weeye shirkii ka dhacay jirina dee rag markuu shiro ee uu go'aan gaadho kulley rag buu dirtaa raggii aan dirana bay ka mid ahaayeen hargeysa hadday tegeen wixii kale deegaanada ka soconaya ama nabadayna ama arrina dee mashaqay ku leeyihin yaa u dirtay iyaga inay yidhahdaan hebel ma raaci kariyo hebel ma tegi kariyo hala kulminayo annagu waxay guddi noogu ahaayeen inay alaabtan qaadaan ay geeyaan hargeysa intaasay noogu ahaayeen laakiin tale aanu daba fadhiisanaynay oo annaga aanu daba fadhiisanay iyaga ma ay jirto tanna ninkii colaad ka doonayay ma dhacayso shalay haddii ay dhacdo lanaga caqli batay lagama caqli badnaan karo reeruhuna way isyaqaanaan ragguna way isyaqaaneen nin nabad doona nin aan caaduqaata ahayn nin raggu hadduu ka qaldan yahayna ka garbaxa intaaba dhuka jirta laakiin ma dhacayso in dad la isku diro annagoo iminka joogno nool ma soconayso annagaa u joogna annagaa ku garanayna ciddii wax waddo dhanba markaan sidaa leeyahay anugu nimankii hadlay un baan u jawaabayaa nimanka qaada sameeyey ganacsatada ee aadka noo caawiyey ee naga taakuleeyey diiwaangelin hadday tahay iyo haddii ay tahay shirkaba iyaga aad baan uga mahadnaqayaa labada nin ee labada guddoomiye waa laba nin runtii aniga maanta waxbaa igu biiray inta ninkaa guddoomiyaha xasan yimidayna waa wax cusub oo uu la yimiday waa nin intaba daacad ka ah waa nin raba dadku inayna isdiidin waa nin raba inayna islayn labadaa guddoomiyena maanta waxay u shaqeeyeen si dhabay u shaqeeyeen aad baan ugu mahadnaqaynaa marka waxaan leeyahay ninkii waxwadowba waxaaguma soconayaan annagu waa nin dhallinyar anigu xaarinanoo jogayna cali dulo la hadlay oo waxaad wadday la sheegayaa waa maxay waxba ma wada biigunogeeshu waxba ma samayn waxaad wadaana wax fiican haddana wuxuu iisii dhigay miirooyin uu dhigaya tuulooyinka ma oyin nabadlaanta wuxuu ka doonayo reeruhu hadday wax kala haystaanna waa la garrami ninka uu doonayo reerka uu doonayo uu soo dhadhacsadaa
waxaan baad waddaa iga daa buu idhaa laakiin tabliiq laguma eedaamo markaa waxaan leeyahay taa maanta aan wadnaana waa tu soconaysa waa tii dadku ay u bahnaayeen waa tu dadku ay doonayeen ilaahayna ku galaday labada nin ee la hogaaminayay ee gudoomiyaha Salal iyo gudoomiyaha gobolka Awdal sidaa awgeed waxaan leeyahay war wixii la idin diraa ma ka soo baxa ama wixii iska dhiga anaga u geeyay waa 20 cisho waxa joogtaan laakiin dad wanaag sameeyay nin forjaynayo isaga dhigaya nin waxay isugu hadda dawladda inaad raacadeen ma noo soo sheegto kugu dirnayn ma noo soo sheegto anagu kugu dirnayn waxaan leeyahay nimankaasi wad maadsan tahay bay geeyaan abaal weyn bay lagu leeyihiin way dhisteen raganimooda iyo waxay yihiin way soo sheegeen sida awgeed waxaan leeyahay waa raali gelin inaad ka bixisaan ba fiican nimanka dadka walaaliyay saaka waxaan halkan u fadhinay inaan ka hadalno mawduuca cajab geliyay meel uu ka socdo iyo cid uu socdo midnaba aanu garan weynin oo ah mawduuc ujeedda badana waxaan halkan kala hadlayaa niman halka Hargeysa fadhiistay shalay toole qadeeyay waxay doonaan afkooga ka yiri awalan halkan waxaan ka salaamayaa nimanka ganacsatada ah ee ka soo jeeda beesha Ciise ee qaybta weyn ka ahaa qabanqaabadii shirkii jiri ka dhacay gacan weyn naga siiyay diiwaangelintii gacan weyn naga siiyay iyaga waxaan leeyahay jazakallahu khayr abaalkaas waa abaalan nihayno oo abaal deegaankiina iyo dadkiina aad u gasheen haddaad tihiin ganacsatada beesha ka soo jeeda ee degan Hargeysa idinka midkaasaan leeyahay tulkiina waa New York yahay talabaad kale anagu waxaan deganahay wadankan ila dhagaxba meesha la dhigay buu yaalaa bini'aadanka jaarasha in nabad lagu noolaadaana hagaagsan haboon oo toosan baan leeyahay dadka cidii haddaan wax ka tabanayno midaan bay leeyihiin dariiqada iyo wadiiqa loo maray leeyihiin ma jirto wax dhiba iyo wax cola oo anagu aan gudoonsanay qaadanay garanay dadka dariska ah inaan duulaan ku qaadno sida liajligeed nimanka halka jooga waxaanu u diranay oo guddi ka ahaayeen 13 xubnood 13 ka xubnood waxa jiray guddi qabanqaabo ku soo rafaaday ku soo dib gashay qabsoomida shirka beesha Ciise ee jiri ka dhacay ciisu qabaylka Soomaaliland bay kamid yihiin cid taladooda iyo tusaalahooda iyo shirkan ku haysataana anagu maanaan maqal guddigu hogaaminayo barsaabka gobolku beeshana Axmed Aadan Bila ugu weynaa oo caaqilka guud ee beesha Soomaaliland degan ee Ciise aan u naqaano ognahay haddaan been ka sheegayo ciidda ay oranaysa Ibraahim oo been baad sheegtay iyada soo hadli doonta deegaankan anagu waxaan ognahay Axmed Aadan inuu dadkiisa beeshiisa sharaf ku leeyahay in la yiraahdo caada qaatayaal aad iyo aad baan uga xunnahay nimanka halka jooga laba nin oo kamidii waxay doonaan bay Ciise telefoon ugu soo direen ha qaabilina ha arkina ha la kulmina war waxaan leeyahay nin horta isaga kelmad baan ka oranayaa ninka Xasan Gaalgeel la yiraahdo xasan oo wadankan caruuri kaama taalo wadankan cidi kaama taqaano saaxiib baan kula ahaa oo waan ku asturayay oo waan ku dhowrayay laakiin waxaad ahayd alaysa sheegay cid aad wakiil ka tahay oo ognahayna ma jirto cid hawl ku dirsatayna ma jirtee duqayda haddaan been sheegay iyaga soo hadliye go'aankii jiri ka dhacay warqada qaada gaarsiiyayna bixi baalisa reer isaaq la yiraahdo u diranay ma jirto isaaq la hadla maanaan oran warigayna bixiye madaxweynaha dalka ka wixii go'aan halka ka soo baxay sidiisii anagu ilaa maanta u og qaadanay garanay dadkii halka wax ka sheegan aan ahayn war madaxweynaha u geeyaan laakiin iyo edeb darro maxay deegaanka u tageen in la yiraahdo war milgaha rag lagu yiraahdo anagu ma nihin dad is yaqaanaan nahay waxaan leeyahay Xasan oo dib dhacso wadankan cid ka garanaysa ma jirto cid aad matashaa ma jirto edeb darrada Ciise la dhex socoto wariya ka fadhiiso wallahi hadaad ka fadhiiso waydo billahi ka fadhiisto waydo talaabadeedan ka qaaday ali taasan ku leeyahay takalabaad wasiirka wasaaradda gaashaandhigga war wasiir adduunka lama arag qabaayil shir qabsada oo wasiire dhex fadhiyaan reer Soomaaliland iyaga ay soo jawaabi waan ku saacidnay waan ku ixtiraamnay war beeshu waxay soo saarayso goobjoog ka noqon ku niri
adiga iyo wasiir ku-xigeenka inaad nooc kale u dhaqantaan dariiqad kale aad martaan waar ciisuu go'aankay soo saareen ku horkac oo madaxweynaha tus oo gaadhsii ayay ahayd adi mas-uuliyadda ku saaran waan ka xumahay hadallada barhkood inaad isdhex dhigto ilaahu waxaa la yidhahdaa meel haa iyo maya ha nagaga siin annagu ma nihin dayararoo ciyaaloo la yidhaahdo hebelow kaale hadalo hebelow kaale sidan dhoo ka kale waar waxaasi ma jiraan waar ciisaha 13 oday ee soo dirnay ciisaha waxay ku matalayeen warqadda qaada madaxweynaha toos ugu taga hadduu ini arkana hagaagsan hadduu ini arki waayana hagaagsan labada midkii uu gartaaba isaga u taalla laakiin maaha ciise waa sidan ciise waa ka kale ciise yaa la barayaa ciise waa qoomiyad waa la yaqaanaa degaan buu leeyahay dhul buu leeyahay cid allaaliya cid ku haysataa ma jirto qolada kale ee beesha samaroon annagu deris baan wadaagnaa shirkeygana mana faragelin karaan horeyna uma faragelin ixtiraam iyo waxa naga dhaxeeya walaalnimaa naga dhaxeeya nin walba halkiisu ku egyahay annagu wareegaan marnay waxay ahayd war hadallada diilqaafka af xun baa bilaawe baxshe war joojiya ma kala geydaan ninka taa ka daba hadlay ee waxaa jiraan sheegayow dee ciddii aad la xidhiidhee ku tiri sidaa dheh uunbaad u sheegi ciisaha kale waddanka deggan meeluu joogaba ee aqoon-yahan leh ee indheer garad leh waxaan sheegayaa war annagu odayada muraadkaasaan u dirannay ciisaha somalilan uma taliyaan imminkaan leeyahay berri baan leeyahay sahan dambaan leeyahay